kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab mar kale ayay dib u soo celiyeen qorshahoodii ahaa in ay haweenka adeegsadaan iyagoo ku shirqoolaya askarta ka midka ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo shakhsiyaadka kale ay doonayaan in markaasi dunida ay dhaafsiyaan. waxaan tusaale u soo qaadan karnaa dhacdada galabta qabsatay ninkan idin muuqda oo ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo qorshe ay haweeney ka dambeysay maanta aan dunida u saarneen. ninkan oo ahaa dabcan askari ka tirsan dowladda waxaa lagu magacaabaa Saadaq Muuse. Allah u naxariistay hadda dunida ma dul saarna oo waxaa markaasi madaxa ka toogtay dagaalamayaal ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. laakiin sidee ayuu u dhacay dilkan oo dabcan Al-Shabaab ay soo agaasimeen? waxaa la sheegay ninkan in markaasi uu halkaasi u hasaawo tagay haweeney ay maalmo wada xiriirayeen, taas oo markii laamaha amnigu ay qabteen la xaqiijiyay in wada shaqeyn markaasi ay la lahayd kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. waxaa la sheegay in halka uu hasaawo u tagay saacado daqiiqado kooban markii uu haweeneydan oo hadda laamaha amnigu ay gacanta ku hayaan ay wada joogeenna waxaa la sheegay in dhalinyaro bistoolado ku hubeysan oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ay goobta yimaadeen kadibna madaxa ay ka toogteen oo halka ay isaga baxsadeen. waxaa laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u suura gashay in ay markaasi gacanta ku dhigaan haweeneydan oo ilaa hadda baaritaana ay ku socdaan, laakiin macluumaad hordhac oo aan helino ay sheegayaan in ay wada xiriirayeen iyada iyo sidaas oo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ka tirsanaa ee goobta isaga baxsaday ee nolosha dhaafiyay askari ka tirsanaa dowladda Soomaaliya oo dabcan sawirkiisan uu idin muuqdo. deegaankan oo ah dabcan deegaanka la yiraahdo Galmudug oo duleedka magaalada Muqdisho ku yaalo, maadaama waayihii dambe ay ku badanayeen dilalka Al-Shabaab ay geystaan iyadoo sidaas oo kale deegaanada dariska la ah oo Garasbaaley ay ka mid tahay marar kala duwan askar ka tirsan dowladda Soomaaliya lagu bartilmaameedsaday. waxaa laamaha amnigu ay saareen culays xoogan oo waxaa markaasi lagu howlgeliyay ciidamo kala duwan oo dhar cad ah, kuwaas ayay markaasi suuro geliyay galabta in gacanta lagu dhigo haweeneydan inkastoo ay baxsadeen dagaalamayaashii markaasi Al-Shabaab ka tirsanaa ee dilkan fuliyay. toddobaadkii hore ayaan ogeyn in deegaankan askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku toogteen maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan, laakiin sidaan oo kale waxaa suura gashay in dhalinyaradaas Al-Shabaab u shaqeynayay gacanta lagu dhigo iyagoo waliba bistooladihii ay howlgalka ku fuliyeen gacanta ku haya. maadaama Al-Shabaab marar kala duwan ay u suura gashay iyagoo haween adeegsanaya in ay dhagraan askar ka mid ah ciidanka dowladda Soomaaliya, dhacdadan galabta dhacday waxay tusaale u noqon kartaa askarta ka midka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo iyagu markasta bartilmaameed u ah maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. Al-Shabaab maadaama aanay hadda suuragal u ahayn magaalada Muqdisho inay ka geystaan ama ka fuliyaan qorshayaashii ay horey uga geysan jireen oo ahaa dilalka qorsheysan iyo qaraxyada, waxay markaas hindisayaan qorshe cusub. waxaana hadda qorshahan ah in haweenka adeegsadaan uu noqday midka ay hadda laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya uga digayaan askarta iyo dadka kale ee bartilmaameedku ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab.